maanta oo kale 15 sano ka hor waxay ahayd maalintii loo caleema saaray inuu yahay kabtanka kooxda Liverpool hogaamiyihii ruuxiga ahaa ee Stephen Gerrard waliba waxa lagu xasuusan karaa lama iloobaankii iyo dib u soo laabashadii qarniga ee ka dhacday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga xilli ciyaareedkii 2004-2005 xilli uu kula guuleystay Liverpool koobka Champions League waliba Liverpool qaybtii hore ciyaarta dhinac kasta ayaaba looga wanaagsanaa min bilowgii ciyaartana waxaa goolka koobaad ku bilaabay Paolo Maldini oo ka faa'iideystay Benoni uu soo karoosay Andre Pirlo kuna foorbiishay goolkii wardiyaha uu ka ahaa goolhaya Dudak. A goal in 50 seconds from Milan. Would you believe it? Paolo Maldini, the skipper, has scored it. Only once in the history of the European Cup final has there been a first-minute goal. It was back in the early days, but Jerzy Dudek has been beaten instantly. Paolo Maldini. daqiiqadii 39aad waxa uu raaciyay Hernan Crespo. 2-0. Hernan Crespo, who scored home and away against Manchester United earlier in the competition, has now scored the second in the final against Liverpool. But seconds before, Liverpool had a strong penalty appeal turned down at the other end. markale daqiiqadii 44aad Hernan Crespo ayaa dhaxkatuur wacan oo wanaagsan wuxuu ka helay Kaka in uu dijistay Benoniga ayuu ku garaacay darba calaysan goolkii wardiyaha uu ka ahaa Dudak halkaasina waxa ka yimid goolkii saddexaad ee kooxda AC Milan. This world, nobody can live with this. Wonderful goal from Hernan Crespo of Chelsea. Oh, that is absolutely fantastic. That really is again. One coming short, Shevchenko, Crespo go. qaybtii koobaad ee ciyaartana cid kastaba waxay go'aamisayba in AC Milan ay la hoyatay koobka Champions League hase yeeshee waxaaba dhacdayba soo laabashada qarniga ka gadaal markii Benoni qurux badan uu madaxa uu ku garaacay il capitano Stephen Gerrard. In towards Gerrard! Hello! Here we go! Steven Gerrard puts a grain of doubt in the back of Milan. Smaysar ayaa daqiiqadii 56aad wuxuu darba calaysan uu ka toogtay meel ka baxsan 18 goolka halkaasina waxa ka yimid goolkii labaad ee kooxda Liverpool. Vladimir Smica! 2 goals in 2 minutes for Liverpool. Miracles are possible. Reer Liverpool penalty ay heleenna daqiiqadii 59aad waxa lagu sharfay Alonso waxaana uu dhaliyay si degan oo la jeclaysto. Oh, saved by Didac, Xabi Alonso. Possible is accomplished. Liverpool were 3-0 down 5 minutes ago. And now 3 gool iyo 3 ayayna noqotayba natiijada ciyaarta ilaa iyo ugu dambeyntii la isla gaaray penaltiyaad ama rigorooyin sidaasina waxa ku qaaday kooxda Liverpool. Stephen Gerrardna waxa uu noqday hogaamiyihii ugu yaraa ee ku guuleysta koobka Champions League. Jersey, I apologise. Serginho with the first penalty from Milan. Oh! Harman to give Liverpool the advantage. Oh, that'll do. That got a heroic save in him. It's Pirlo. He's done it! Terrific stop. Pirlo tried to deceive him with a stuttering runner. Gibril Cisse. 2-0. Thomason. He scored. No more room for error for Milan. If Jon Arne Riise can hit the back of the net. Oh! Dudek with a bit of the grovel on wobbly legs. Fired into the room. It's Smica. Match point Liverpool. There will be no second chances if Shevchenko misses. He saved it! The European Cup is returning to England and to Anfield. Liverpool are champions of Europe again.
Liverpool have their hands on the European Cup again, and